عويسي wanaagsan kula soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararkeena caawa waxa ugu waaweyn waxa uu ahaa wiil xaafad isku rarana ku koray laakiin ciyaartooygii caanka ah George Weah waxa uu dhaliyay gool siyaasadeed kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha ee Liberia magaalada Monrovia ayaa aad looga damaashaaday Shiinaha ayaa dafiray inay shidaal siiyeen Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay koonfur Korea gacanta ku dhigeen markab la sheegay inuu jabinayo cunaqabataynta qaramada midoobay caawana waa caawadii tiknoolajiyada sharikadda Tesla ee samaysa gawaadhida korontada ku shaqeeya ayaa soo bandhigay gaadhi xamuulka qaado oo isna koronto ku soconaya taageerayaasha xiddigii hore ee kubadda cagta George Weah ayaa farxad oo dajabiyay kadib markii uu doorashada ku guuleystay madaxweynaha Liberia ninkan 51 jirka ah ayaa helay 60% codadkii wareegii labaad ee sida adag loogu hirdamay kaasi oo ay ku kala calaf qaadeen madaxweyne ku-xigeenkii Liberia Joseph Boakai Weah waa ciyaartooygii ugu horeeyay ee aan European ahayn ee qaada Ballon d'Or ama kabaha dahabka ah bilada la yiraahdo waxa warbixinta guusha George Weah caawa inoo haysa Suhayba Maxamed Badqas boqolaal ah taageerayaasha George Weah ayaa isugu soo baxay xarunta guddiga doorashada iyaga oo u dabaaldegaya guushiisa tirada boqolayda ee guud ee xisbiga CDC waa 61.5 boqolkiiba halka xisbiga Unity Party uu helay 38.5 boqolkiiba daqiiqada kadibna caasimadda Liberia waxa qabsaday heeso qoobka ciyaar iyo hoonka gawaarida oo dhawaq dheer ah madaxweynaha la doortay ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray fariintan waxaan si aad ah u dareemayaa dareenka dalka oo dhan waxaan cabirayaa ahmiyadda iyo mas'uuliyadda weyn ee aan qaaday kormeerayaasha caalamiga iyo kuwa gudahaba way ammaaneen sida doorashadu ay u dhacday waa horumar la taaban karo sida ay markii koobaad u dhacday doorashada bishii Oktoobar qofna la yaab kuma noqonayso in Weah uu guuleystay ninkan horay koobabka ugu guuleysan jiray ayaa isku daygiisii saddexaad ku guuleystay abaalmarintii ugu weynayd noloshiisa madaxweyne ku-xigeenkiisana waa xaaskii hore ee Charles Taylor oo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ay ku xukuntay dambiyo dagaal Weah markuu ciyaartooyga ahaa sagaashameeyadii waxa uu koobab badan kaga guuleystay Talyaaniga iyo Faransiiska waa ninka kaliya ee Afrikaan ah ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA uu u magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka waxa uu xilka kala wareegayaa Ellen Johnson Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota qaaradda Afrika Liberia waa ay deganayd 10 sano ee u dambeeyay kadib dagaal sokeeye oo dheeraa oo dhiig badan ku daatay jamhuuriyadda ugu facaweyn Afrika dhanka xorriyadda ayaa hadda noqotay dalkii ugu horeeyay ee madaxweyne u doorta ciyaaryahan hore guusha uu gaadhay George Weah ayaa haddaba aad looga soo dhaweeyay waddanka Liberia dadka qaar Liberiinta ah ayaa la hadlay BBC-da waa markii ugu horeysay noloshayda ayaan farxad sidan ah dareemo waxaan halgamaynay 12 sano 2005 iyo 2011diiba waan ku guuldaraysanay laakiinse wayna sii dhiirigelinaysaa sababtoo ah waan ognahay inaan nahay dhalinta qarankan taariikh cusub ayaan samayn doonaa hadda waan qiiraysnahay waa taariikh cusub oo farxad leh Weah waa wiil ka abuuran ciidda waxaa madaxweyne loo doortay inay dadka Liberia jecel yihiin waa maalin farxad leh faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay bishii hore qabteen markab Shiinuhu leeyahay oo Kuuriyada Waqooyi u siday shidaal Shiinaha ayaa beeniyay hadalkaasi Donald Trump uu ku sheegay in Shiinuhu tuug yihiin oo lagu qabtay Donald Trump ayaa haddaba Twitterkiisa ku soo qoray in saliid lagu waday dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay la qabtay Shiinuhu waxay sheegeen inuu ixtiraamayo cunaqabataynta qaramada midoobay ay saareen dalkaasi Kuuriyada Waqooyi balse haddaba sanadkan soo socda ee 2018 ma noqon doonaa sanadkii ay Kuuriyada Waqooyi gaari lahayd hamigeeda nuclearka ah
kaasi oo caalamkuna ka soo horjeedo. yaasimiin axmed ayaa ka warramaysa. waxaa la kala wareejinayaa askarta madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed. waa dhaqan hore oo weli ku jira caasimadan casriga ah. laakiin khatartu maanta waxay ka imaaneen dhanka kale. sanadkani wuxuu ahaa midkii ugu halista badnaa. dadka halkan dalxiiska ku jooga waxay jecel yihiin inay ogaadaan sida ay u nool yihiin dadka Kuuriyada Waqooyi. dadka Kuuriyada Koonfureed ma ka cabsadaan Kim Jong-un. markii uu ninkan canjiliyo kaliya taliyaha Kuuriyada Waqooyi ma ahan mid ay dadku ka naxaan. dadka qaar baa idhahda waa nin khatar ah, laakiinse annagu kama cabsanayno General Kim. balse hadalaha waa kuwa ka xanaajiyo Professor Park Hee-rak. waxaan u malaynayaa in odhaahda wanaagsan in la yidhaahdo dadka ha welwelina inay fududahay. si aynu u difaacno ubadkeenna waa inaynu marno waddo cidhiidhi ah oo aynu wax walba u diyaargarowno. dhismaha lagaga dhunto qaraxyada nuclearka waxaa ka helaysaa wax walba oo aad ku noolaan kartid muddo dheer. laakiin qiimihiisa waa $50,000 mana cadda inta qof oo diyaar u ah inay iibsadaan. warka wanaagsani waxa uu yahay in hoggaanka Kuuriyada Waqooyi uu yahay mid macquul ah oo aan diin ku dhisnayn oo doonaya in ay jiraan. waa la maamuli karaa. ka hortagiddu way guuldaraysan kartaa, laakiin cabsigelin wax ma soo kordhinayso. inkasta ay dadku ka wada hadalhayaan khatarta Kuuriyada Waqooyi, dadka Kuuriyada Koonfureed uma muuqdaan dad cabsi ku jirta. waana magaalad aad u degan. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. dalka Masar 12 qof ayaa dhintay kadib markii maanta xaafadda Xilwaaniya ee Qaahira 2 weerar ka dhaceen. 10 ayaa dhintay kadib markii ay kooxistiri jiira kiniisad qibdiintu ay halkaas ku leeyihiin, laakiin booliska ayaa horqabateeyay. isla xaafaddaasi ayaa 2 qof ku dhinteen kadib warkii weerar kale ka dhacay dukaan ay isla qibdiintu leeyihiin. cadaadis badan ayaa fuulaya madaxweynaha Suumaha Koonfur Afrika. maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa maanta xukuntay in baarlamaanka dalkaasi ay waajibkoodii gudan waayeen marka la eego fadeexadda musuqmaasuq ee dalkaasi ka taagan. waxayna maxkamadda baarlamaanka ku amartay in uu bilaabo habraaca xilka lagaga qaadayo madaxweynaha dalkaasi Jacob Zuma oo loo haysto dacwado musuqmaasuq. koox ka waraysa xaaladda Suuriya oo degan dalkan UK ayaa sheegay in 24 saacadood ugu dambeysay dalka Suuriya waqooyi galbeedkiisa lagu dilay ilaa 66 qof. ciidamada dawladda iyo mucaaradka ayaa gacanta isula tagay iyadoo diyaaradaha Ruushka kuna dagaalka ku soo biireen. waxay sheegeen in 19 qof ay ku jiraan 7 carruur oo rayid lagu dilay Idlib iyo Hama. sharikadda Apple ee moobilada samaysa ayaa raaligelin ka bixisay kadib markii la ogaaday inay si ula kaca u yareeyeen xawaaraha iPhone-ku noocyo ka midii si dadku isaga beddelaan oo qaar kale ay u iibsadaan. laakiin sharikadda ayaa ku andacootay inay rabeen inay madxiyaan moobiladaasi si aan wakhtigooda u soo gabagaboobin. waxay ballan qaadeen $50 oo qiimo dhimisa ciddii iibsatay bay yidhahdeen baytari cusub oo iPhone 6ka iyo kuwa ka horreeyaba ah. sanadka soo socda ee 2018 waxa uu noqonayaa sanad aad ugu muhiima qaaradda Latin America. gobolkaasi waxa uu qaban doonaa shirka wadamada qaniga ah ee G20 la yiraahdo kulan qaaradeedka Mareykanka. ajandahaasi waxa uu noqon doonaa ugu weyni howlgabka madaxweynaha Cuba Raul Castro, go'aanka uu Mareykanku ka gaari doono heshiisyada ganacsi ee uu la leeyahay Mexico. balse ta ugu muhiimsan eeyana qaaraddaasi sanadka soo socda ka dhacaysa waxa weeye iyada oo 6 dal ay doorasho madaxweyne ka dhacayso oo ay ka mid yihiin Mexico, Brazil iyo Venezuela. Qaalib Xasan Baaruud ayaa eegaya Latin America iyo sanadka soo socda. u dharaar cusub siyaasadda Colombia waxaana bisha 3aad dhici doona doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii golaha deegaanka.
waxaana markii ugu horraysay ka qayb qaadanaya jabhadda faak oo hadda u xiibsiibatay xisbi siyaasi taasoo ay suurto gelisay heshiiskii nabadda ee uu saxeexay madaxweyne guan manuel santos hoggaamiyaha faak timojenkow ayaa sheegay inuu yahay musharax madaxweyne laakiin marka laga gudbo heshiiska nabadda dadka kolombiya waxay welwel ka qabaan musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha dalka markana dhanka mexico oo mar kale ajendaha ugu sarreeya uu yahay musuqmaasuqa andres manuel lobes oo ah siyaasi dhinaca bidix ah ayaa musharaxiinta ugu cadcad waxa uuna wacad ku maray inuu musuqmaasuqa siyaasadda ka nadiifin doono laakiin dadka dhaliilaa waxay ku eedaynayaan inuu yahay dabhuriye haddana barasiil oo wareersan sannad walba waxay ku siibataa dhibaato siyaasadeed oo cusub madaxweyne michel tamer waxaa lagu eedeeyey musuqmaasuq sidii madaxweynihii ka horreeyey ee lula de silva oo hadda ah musharaxa hoggaaminaya ololaha doorashada weli waxa uu taageero weyn ka haystaa dadka saboolka ah laakiin dadku iskuma raacsana kristina waxay hore ugu codaysay lula si loo beddelo siyaasaddii hore balse hadda waa laba daran mid dooro dadka barasiil dhan kasta ayaa looga xadgudbay ma jirto dareen ah sharafta ama danaha guud dareen ah aan horumarino dalkeenna aan la imaanno wax cusub iyo in ay maalgashadaan mustaqbalka carruurtooda marka haddii aad i weydiiso yaad u codaynaysaa maba garanayo haddana aynu eegno dhanka venezuela jowkarka qaaradda waxaa ka jira doorasho madaxweyne sannadka dambe madaxweyne nicolas manduro ayaa taageero ka haysta 30% dadka venezuela laakiin mucaaradka dawladdu waa mid habacsan oo kala daadsan sidaa awgeed madaxweynuhu waxa uu weli ku jiraa kaalin wanaagsan caawiya xagga ciyaarahana ciyaartooyga weerarka ah Sanchez ee Arsenal ayaa xalay isku laba rogay oo 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Crystal Palace ayay 3-2 kaga badiyeen ciyaartooyga Chile u dhashay ayaa mar walba la isla dhexmaraa mustaqbalkiisa iyadoo bishii January ay kaabigeen ugu hayso ee ciyaartooyga la kala wareejin jiray caawana waa caawadii technology-ga waxaan war idinka haynaa caawa shirweynaha ragga jabsada kombiyuutarada ee hawada dhexdeeda ka duwada macluumaadka oo shir yeeshay iyo qodobo kale waxa caawa soo diyaariyay Farxaan Maxamed Jimcaale madaxa shirkadda Telsa ayaa ballan qaaday in ay samaynayaan baabuur weyn oo qayb ka ah qorshooyinka shirkaddan samaysa baabuurta korontada Elon Musk ayaa dadka ku xidhan Twitterkiisa ku weydiiyey fikrado lagu horumarin karo waxa uu sheegay in baabuurkaasi uu xigi doono modelka Y kaasi oo ku salaysan modelka saddexaad ee Sedan ciyaaryahanka adduunka ugu horeeya shaxda ayaa samaynaya ciyaar ku salaysan caqli macmal ah laakiin markan ma noqon doonto midda Google ee DeepMind loo yaqaano oo ah mashiin kula ciyaaraya Kichi ayaa hore u sheegay in wax macmala aan ku ciyaari doonin laakiin warbaahinta Shiinaha ayaa ku soo warantay inuu la ciyaari doono Tencent-ka Shiinaha bisha April 2018 shir ayaa uga bilowday magaalada Leipzig kooxaha kombiyuutarada jabsada naadiga dhibaatooyinka kombiyuutarka ayaa ku qiyaasay in 15,000 ay ka qayb gali doonaan shirkan oo soconaya 4 maalmood arrimaha looga hadlayo waxaa ka mid ah halista ammaanka kombiyuutarada ilaalinta xogta iyo weerarada internetka waxay yarayn doonaan saxaafadda ka warramaysa si loo ilaaliyo wejiyada dadka qaybgalaya ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa qaadaysa tallaabooyin ay wax uga qabanayso ka ganacsiga lacagta dijitaalka ah waxaa ku jira tallaabooyinkaasi in la mamnuuco furashada akoon aan magac lahayn oo lacagta dijitaalka ah waxaana mas-uuliyiintu ay joojin karaan sarifka lacagahaasi haddii loo baahdo caawana waxaan idinkaga tegayaa Ranjit Singh askari traafikada Hindi ah oo ciyaarta qoobka ciyaarka ula kala baxay waa laga yaabaa inaad aragto ood garatayba siduu ciyaarayo inuu Michael Jackson aad ula hayo 12 sanadood ayuu ninkaasi ciyaaraha gawadhida ku kala waday dalka Hindiya magaalada Indore intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeygii ugu dambeeyay sanadkan 2017 intaynu kulmayno sanadka dambe nabadgelyo